kulan wacan wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee naga daawanaya barteena YouTube ee Galka Media iyo sidoo kale barteena Facebook ee Galka Media waa tahay isku soo noqod oo xiiso wanaagsan sida aad inooga barateenba waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa xogaha degdega ah maxaa Soomaaliya ku soo kordhay sidee weeye xaaladda guud maxaad kala socotaa ahlu sunna iyo qoorqoor wada hadalka qadka telefoonka dhaxmaray shuruud loo soo bandhigay maamulka madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor balse ahlu sunna iyagu ay markaa dib ugu noqdeen xaaladda guud guuracayl dadka markaa baahida xilligan u dhimanaya ee duleedka guuracayl maxaad kala socotaa waa tahay warar saacadihii ugu dambeeyay isa soo tarayay waxa ay markaa sheegayeen in xaaladda guuracayl marka laga tago wada hadal qadka telefoonka xalay u dhaxmaray sheekh maxamed shaakir cali xasan oo hogaanka wadaadada la magac baxay ahlu sunna wal jamaa iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor balse wada hadalkaasi oo natiijadiisu ay aad u wanaagsaneed gadaal ay xaaladdu ka qaraaraatay ayaa la leeyahay oo inta badan markii ay xaaladdu ay dhinacyada ahlu sunna ay badiyeen shuruudaha ay ku xirayaan qoorqoor waa tahay marka hore waxaan ku leenahay marka muuqaalka share garay si dadka oo dhan uu gaaro xaaladan marka waxa ay ku soo korodhay guud ahaanba in ahlu sunna wal jamaa ay sheegteen shuruudo waaweyn oo maamulka galmudug ay qaadi kari waayeen sheekh maxamed shaakir cali xasan waxa uu yidhi xildhibaanada la soo xulayo ee golaha shacabka waa in aynu lahaanaa qoondo horay aynu ula heshiina ayuu yidhi madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geel laxaaf sidoo kale la soo celiyaa saamayntii ahlu sunna wal jamaa 2 sano ka hor ahlu sunna waxaan la soconnaa xerada inji in loogu saaray xabad sidoo kale wadaadadu ay gacan markaa adag lagu qaban rabay balse inta badan markaa xaaladoodu la soo gabagabeeyey guud ahaan marka waxa ay noqotay xaaladooda mid ay markaa inta badan la istusay oo ay socon weyday dhaqdhaqaaqyada iyo saameyntooda siyaasadeed qoorqoorna waa uu ka didayaa marka guud ahaan markaa fiirisid xaaladda guuracayl oo inta badan la sugayey in ay ka baxaan wadaadadu ay faarujiyaan maamulkii lagu wareejiyo waa ay ka biyadiideen maamulka galmudugna shuruudaasi ayuu isaguna markaa xamili kari waayey guud ahaan markaa fiiriso xaaladan iyo qaabka ay markaa ku dambayn karto waxa ay dad badan markaa ku sifeeyeen oo ay ku macneeyeen in dagaal looga cabsi qabo maanta inuu halkaasi ka dhaco dad baa barakacay dadka barakacayna waxa ay wajahayaan xaaladtii ugu xumayd abid ee dhinacyada markaa ay soo wajahdo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun war dadkii lagu gorgortamayey oo inta badan dadkii shacabka loo talinayay ayaa maanta geeriyoonayo waxaas miyaan daawan karaynaa inta badan ahlu sunna waxaa lagu eedeeyey in xaaladan iyadu ay u ololeynayso inuu dagaal ka dhaca marka inta badan guuracayl waa la diiday oo waa ay ka biyadiideen qofna la hadlay wuxuu nagu yidhi waxaan wadaa hooyo xaamilo ah oo inta badan markaa ay saacad walba laga filan karo in ay dhasho dhalitaanka ka hor waxa uu yidhi caruur badan ayaa jira xilligan baahi xamili kari waayey waxa ay ku yidhaahdeen haddaad diin sheeganaysaan ahlu sunnow war meesha maatadii baynu nahay ee inta badan aad u talin laheedeen magaalo faaruq miyaad u talinaysaan waa su-aal aad iyo aad qof walba oo shacab soomaaliyeed aad u qiiro gelisay sheergaray muuqaalkan sheergaray si uu u gaaro dadkii ay qusaysay ahlu sunna ha noqoto galmudug ha noqoto maamulkii guud ahaan waxa u muuqdaa ciidamada dowladda waxaa leeyahay jihaayin dhowr ayay magaaladu markaas runtii ay ka taagan yihiin qoryihii waaweynaa ayay rakibteen xaalad adagaa ka taagan wada hadalkaas hadduu guul daraystay qoorqoor waxaa laga cabsi qabaa inuu tallaabo qaado tallaabada uu qaadayna waxay noqon doontaa in uu u adeegsado magaaladaasi hub aysan xamili karin oo inta badan ay noqonayso yaa dhintay yaasa nool yaa cararay yaa fakaday lagu kala garan waayo war muuqaalkan hala sheergareeyo xaaladda ahlu sunna way ka sii daraysaa dad badan ayaa baahi xilligan ugu dhimanaya duleedka magaalooyin hoostaga ee dhinaca iyo weliba guuracayl xaaladdu way adag tahay muuqaaladan sheergareeya wixii ku soo kordha xaaladan guuracayl halkan ayaad isha kula socon doontaan halkan ayaa toos aad kaga daawan doonto muuqaaladan sii sheergareeya barteena youtube-tana rukumada page-keena sidoo kale like iyo follow aragtidiina waa muhiim aragtidiina wallaahi maanta haddaad commentigaas ugu dhidhisid walaalahaas dhibaataysan
hooyada xaamilada ahi ee duurka maanta ku jirto wallaahi meel weyn ayay gaaraysaa qofka i daawanayow aragtidaada qaybta hoose nagula wadaag maanta waxay kaaga baahan yihiin garab oo qalinkaaga aad ku maasha ah